الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم توفيقا من وافج الله سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan u joognaa maanta in ra'yi-ururinta dastuurka qabyo-qoraalka ee Soomaaliya loo sameynayo waqtigan kala guurka. Marka waxyaro taariikhan ayaa idin siina guddiga soo qabanqaabay dastuurkan oo la yiraahdo guddiga madax bannaan dastuurka. Guddigaas waxaa la aasaasay 2006 inay dastuurkan ka shaqeeyaan 15 qofood ayay ahaayeen markoodii hore. markii meeshii inflation ka dhacay 30 ayaa laga dhigay. marka 30 qofood ayaa meeshii ka soo shaqeeyay iyaga iyo khubara oo maaragtay ay ka mid yihiin Soomaali iyo ajaanib meesha. marka abaar markay soo wadeen waqti dheer ay qaadatay 2006 ilaa iyo haddeertaan waa garan kartaan. marka waxaa la isla gartay in qabyo-qoraalkan loo xilsaaro guddi kale oo la yiraahdo loo bixiyay guddiga khubarada. guddiga khubarada markaa ujeedada fikirka waxaan maleynayaa inuu ka yimid dowladda Kenya oo ayaa dowladda markay dastuurka samaysanaysay iyada nafteeda ay samaysay waxaa la yiraahdo guddiga khubarada ama committee of experts. marka guddigaa waxaa la yidhi war dad aan markino aanan ahayn looyaro laakiin bulshada dhinaca kala duwan ka yimaada aqoonyahan hadda isugu keeno. marka guddigaas waxaa la aasaasay Septembertii soo dhaafay. ujeedada loo xilsaaray waxay ahayd in markino guddigan dastuurkan ay dhamaystiraan. dastuurkan in lagu daro language oo maaragtay looga baxaayo transitionka. inta taqaana in kale ma garanayo transition wax fiican maaha. dowladda Soomaaliyeed maanta haddii la yiraahdo baabuur ayaa loo soo iibinaya ama buwag oo maxaa la waraaqaha oo maaragtay xafiiska ay ku daabacdo hay-ada oo maaragtay maxaa lahaaya oo NGO-ya ayaa soo iibinaya. marka dowladdii wax xiriir oo ay gali karto international male. sidaas darteed waxaa muhiim ah Soomaaliya runtii waad aragteen dowladihii la soo dhisay oo dhan 6 bilood ay jiraayeen ama 8 bilood ay jiraayeen waa burburayeen. marka saas darteed charterkii oo hadda lagu soo waday transitionka ileen ugu noqon karo maaragtay maxaa la dhahayaa dastuur dowladda hadda dhalan doonto. sidaas darteed charterkaas in meesha laga bixiyo oo dastuurkan si temporary adoption wax la yiraahdo loogu guddi ilaa 8 markii hore waxaa lagu soo gaaray go-aan ilaa 1 qofood haddana la leeyahay 825 qofood ayaa la isu keenayaa. guddigaas oo maaragtay hawl dhowr beri lagu hayn doono maxaa sidaa hadda aan maqlaayo scholar provincia. marka dastuurka say u ansixiyaan. marka guddiga markay dastuurka ansixiyaan oo ansixis markaan leeyahay waa temporary adoption. dastuurkan wuxuu ansixi doonaa ilaa Soomaaliya hor ka noqoto shacbi kasta Soomaali ra'yigiisa ka dhiibto uu yiraahdo waa ogolahay ma ogolahay
marka dastuurkan haddaa fiirisid waa fara badan yahay. waxa uu fara badan yahay waxa waaye meelo qaarkood details fara badan ayaa ku jiraan. meelaha qaarkoodna waa annaga dhaqankeenii hore Soomaaliya haddaan nahay federal system ma qaban jirin, hadda federal system ayaa lagu soo daray, taasoo ay go-aan ka gaareen waagii Bigathi madaxdii markaa joogtay oo ay dhaheen annaga wax kaliya aan ku heshin karno waxay tahay maaragtay federal system. waxaa kaloo jiro dastuurku wuxuu ka koobmaa 17 qodob iyo qodobo schedules oo fasiraya howlaha qodobada qaarkood. 17kaas qodob oo chapterka ah waxaa ku jiro chapter 9 oo laba mar ah. chapter 9kaas labada mar ah wuxuu fasirayaa systemka dowladda ay qaadan doonto ee Soomaaliya. wuxuu noqon doonaa mid parliamentary ah. marka haddii parliamentary la qaato si uu shaqeyn doono ayuu ka sheekeynayaa. haddii la qaato mid presidential sida Mareykanka oo kale na wuxuu ka sheekeynayaa optionkaasi nidaamkiisa madaxweyne ku-xigeen maaragtay prime minister inuusan jiri doonin haddii presidential system la qaato. marka markii guddigii loo xilsaaray anigaan ka mid ahaa ayaa waxaa la isla gartay in dastuurka u baahan yahay in shacbi weynaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan la gaarsiiyo. sida kaliya lagu gaarsiin karo ay noqoto maarkiino in loo geeyo meelaha ay joogaan. laakiin waxaad ogaataa haddaadan adiga dhaqaalahaagii iyo maarkiino awooddeeda aadan lahayn waxyaabo badan ma samayn karto. marka waxaa loo soo ogolaaday waddanka Mareykanka 2 meel in lagu qabto. hataa meesha Columbus Ohio hadda aniga maraba meeshan hortiin inaan maarkiino iskiinigo nin khatar ah, laakiin meeshan anaa ku adkaystay oo dhahay wadamada Ohio dad fara badan ayaa joogaan. marka hore qorshaha wuxuu ahaa waa joogaan dadkii warsada daartii. marka hore qorshaha wuxuu ahaa Minneapolis keliya. war ma anficaysa Minneapolis keligeed ma anficaysa kan laga dhigo. marka nasiib daro hataa waxaan ku talagalnay in maaragtay maalin weekend tahay meeshaan in lagu dhigo, laakiin waqtigii ayaa ciriiri ah. marka sidaas darteed intiina waxaan u maleynayaa inta horta aad timaadeen waa ku mahadsantihiin. dastuurkan waa dastuurkiina, waa dastuurkeena. ani meeshaan ma joogo inaan idinka iibiyo, idinkaa iskale. wixii ra'yi ururin waayo, wixii ay isleeyihiin waa soo akriyi qodobkaas ma noo cuntamaayo. qodobkaas wuu fiican yahay, fadlan fikradiina ayaan aruurinaynaa. sidaa ujeediin maarkiino kameramaano ayaa jooga. cajaladahaas hadda waxaa idin tusnay maarkiino la tashiga xamar ka socda biiliha aad arkaysa. odayaal ayaa la isugu yeerayaa. waxaa jiro ardayda jaamacadda waa loo tagay, waxaa loo tagay dadkii maxkamadaha ka shaqeynaya, dadkii shacbiga oo maarkiino caadiga. marba meel baa la isugu yeeraa, ra'yigooda ayaan dhegaystaa. marka sidaa aniga hadda aan ka warqabo, aniga saa ka warqabtiin waxaan deganahay maarkiino waddankan Mareykanka magaalada Michigan. marka arrimaha waqooyiga Mareykanka ka socda aad baan la socda. fikrado aad u xunxun ayaa laga bixiyey maarkiino dastuurkan. qaarna waa dhici kartaayo meela uu ku liito inuu jiro, laakiin fikradaha kale oo ah in maarkiino waxaan dad kala iska wataa iyo Soomaaliya waa lagu khasbayaa iyo maxaa la lahayaa haddana maxaa saacaddan dastuur maxaa looga baahan yahay iyo kuwaas aniga haddaan rabtin waa idinkaga jawaabi karaa. dowlad aan dastuur la-aan ma soconayso. waxaysan u soconayn waxaa waaye baarlamaankii iyo madaxweynihii haddii isqabtaan yaa kala saaraya. maxaa la lahayaa prime ministerkii iyo maaragtay iyo madaxweynaha haddaa isqabtaan yaa kala saaraya. marka waa inuu meesha dastuur jira. marka sidaa darteed maanta waxaan halkaan u joognaa inaan maarkiino ra'yigiina aan aruurino. waxaan rajeynayaa inkastoo waqtiga aad yaraa dadkii qaarkooda waa soo akhristeen, qaarkooda inaysan soo akhrisanin. marka 2 formaat ayaan ku sameynaynaa. marka hore waxaan bilaabeynaa haddaa rabtiin debate aan ku bilaabeynaa, iyo haddaa rabtiin waxaan ku bilaabeynaa maxaa la nigol ra'yigiis. laakiin waxaa ila rabo intii dadka ay kasoo badanayeen inaan debate ku bilaabo. marka waxaa aniga
aan meelahan kusoo wareegay dad badan ayaa waxay ka dhowr shay ay ka baakiro yiraahdeen waa ma suuragelayso qodobka ka mid ah qodobka dhalashada yaa Soomaali ah iyo yaa sidee dhalashada Soomaaliya lagu heli doono marka dadka aaday u qeyliyeen arrintaas marka ra'yigiina see u aragtaan dhalashada waxa ay leedahay nin kasto oo Soomaali ku dhasho automatically wuxuu leeyahay dhalasho oo Soomaaliyeed sida dhaqanka Mareykanka oo kale laakiin dadka aniga aan la hadlay waxay leeyihiin walaalahay wadan maaragtay xuduudihiisa ay furan yihiin waaye dad naga tiri badanna daris baan nahay hadday soo buuxsamaan anaga wadankii baba yeelnay marka waa arrin meesha ku jirta marka sidaas darteed please nin walbo oo ra'yigaas waxaa ka qabtid aan arurino microphone waa idin soo dhiibaya aan sugna dhiibno gadaalda markaas waxaan bilaabaynaa hadhowti ra'yi arurinta halka laakiin arrintaa hadda oo aan maaragtay ku saabsaneed dhalashadaas oo iyo waxaa kaloo ku jira dhalashada wiil sideed jir ah haddii uu laga helo xaq Soomaaliya wiilkaas sideed jirka ah oo aan loogeen aabihii hooyadii oo aan la kasayn meel u kiimid wiilkaas waa automatically waa Soomaali qodobkaas dad ka soo horjeeda waa jiraan dad dhehena waa macquul waa jiraan marka please ra'yigiina dhinaca dhalashada sidaa u aragtiin yaa Soomaali ah sidee leesay lagu heli karaa maaragtay dhalashada Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan 10 daqiiqo ka doono aniga waxaa la yidhahdaa Dr. Ali Saciid Faqi sidaan hore u sheegay ma ihi garyaqaan waxaan ahay scientist laakiin fursad loo siiyey arrintan inaan wax ka qabto marka haddii aniga su'aal shakhsi aniga ku saabsan tahay diyaar baan u ahay halkaan inaan ka sheego haddii kalena maaragtay sheekadii meesheedii doodii meesheedii inaan ka wadin qeyba aan ka bilaabay qeyba idin jeeday xasan qoysta mikrofon waaye mikrofon miyaa waa kan maxaa soo yaabay intu yaa ku qaadi hay okay udah oday marko meeyarka magaalada Xamar meeyarkii hore magaalada Xamar madaxdii badan waa joogta by the way yaa madax badan ay joogta wixii oo dowladii TFG la ama maarkii dowladii hore Maxamed Siyaad Bare madaxdooda ay joogaan fadlan wixii khibrada loo kordhinayay diyaar udawa mikrofon أيوة أنا أتصنتهاي تستور كان دراستي أنا قبيحة بحساب رنتي أدو قلب أحد التعارض وتير درشات لكن ما تتكدت قد ولي كرام وحيلاتها هاي هنا عن شفتها هي غير وكلمة أنا عن هالشيء ضد الكوسة وكاده أنا عن دودي وحتى يسوق absolutely أساسا أنا واحد رنها قبل أنا إلا ذكرته كيف هي أساس إلى إيمان وجودها كنيسة. وأنا معي كان يقول فردا ضد كل كذا دعية مالك دستور كان سوماليا أيو قيلنا يا مقبولنا يا هذا أخسان في عمل كيسة أمام محله ورئيسة وحقوق كيسة